خبر بان دي هيا اد بقدور تعشين سلامات من كل آفات دقيستا بسم الله الرحمن الرحيم انكو بلابو هذا الكيغا حالي أروسكيغا أنا جايو odagayga حسين أروسكا ugu talagalnaa oo isla ka dhigno sirteedii sidii ay wax haayeen sida social media laga wado anuga inaad rabtaa inaad dhageystaan soo idin bilaabaya aan ku bilaabo magaca Ilaahay bismillaahir rahmaanir rahiim wax badan ka oran maayo muhiimada aan rabo inaan dhaho waa sidoo aroosku xalay ahaa uu ku bilowday iyo sida aan anigu asanasteexa ahaan oo aroosadii ahayd aan ka aamisanahay oo aan qabo sidoo ku bilowday si qurux badan bay ahayd sidii loo soo agaasimay family and friends oo garab fiican iga siiyay waligay aan hilmaami doonin still now aan aamisanahay arooskii si qurux badan inuu ku dhamaaday لأنه dadka qaar ay u maleeyaan inay si khaldan uu ku dhamaaday si khaldan ani ilmo dhamaano ummad ijecel baa buuxday meesha Soomaali Maxamed intii dibadda iyo dalkaba joogtay waxay rabeen inay qayb iyo mataqaana marxaanti ka ahaadaan anigu gabar Soomaaliyeed ka soo gabar fanaanadaan ahay bulshada Soomaaliyeed magac baan ku leeyahay waxaanan ogahay inay aad ii jecel yihiin ummadda Soomaaliyeed intaan jecelahay in ka badan ay jecel yihiin inta ii timin tay jecel yihiin in ka badan anna waan jecelahay iyaguna waa ogahay inay jecel yihiin waxaan aad iyo aad waliba aan ka raali gelinayaa dhammaan intii madashaas ku sugnayd ee xalay isu soo qaban qaabisay ee meesha timi ee meeshu deeq weeday horta 100% apologize baa idinka siinaya talabaad waxaan rabay aadna waan uga xumaynay dhamaantii soo wada gelin waxa soo dhanna waa jacayl waa in aan bulshada dadka kale gabadhaha kale inaan dheerahay ayaan isku arkaa sidii aad xalay iigu soo baxdeen oo rabteen arooskayga inaad ka soo qayb gashaan runtiina waa qayb wadnahay kamid ah ayaa waxa idin leedahay waan idin waa alshan wadnahayga ayaa idin dabacsan sidaas quruxda badan aad u soo wada baxdeen dhamaantiina u wada qurux badnaydeen waan idinkaga mahad celinayaa oo marnaba xagga qasaar ma taalo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo oon mahad gaar u celiyo qayb kamid ah dadkii xalay madashaas joogay dadkaas oo ugu horeeyo familkayga oo dadkii family and friends waliba qaraabadaydi dhamaantood magacan oo soo koobeen familkayga waa familkayga qaraabadii asxaabtii fanaaniintii oo intaan soo casumay runtii si sharaf loo qiimo badan mid walba xaadir u soo noqday oo heesa ay ii soo diyaariyeen oo ay ila garab taagnaayeen aad iyo aad iyaguna waa familkayga fanaaniintaas waa familkayga oo fanku isaga walaal ah intii fanaaniin meesha xalay joogtay anoo idin kala qaadaynin qof walba wadnahayga boos buu ku leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii dibadda ka shaqaysay oo ay kamid yihiin Kabray wiilkan habartoo ahay maxaan ku raahday oo jooga Indonesia hadaan khalday wadankay raali aho oo shaqo badan iyo xoog badan ka geystay habar macaan wiilkan habartoo ahay Kabray habar macaan waxaan ku leeyahay thank you so much aad baan ku jeclahay meel aan film baad ka soo baxday runtii waana ogtahay muhiimna maaha inaan sheego waxa qabatay laakiin waad sogtahay qalbigaagu waa ogyahay kayguna waa ogyahay habreer talamaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan fanaaniintii dibadaha ku maqnayd ee heesaha ay soo diyaarisay ay kamid tahay maxaan ku dhahaa maama Sahra Ilays maxaa la yiraahdaa dalmaryare sakiyare Allahu musta'an ilaahay rabbiga inta ilaaway dambigooda iga dhaaf dambi tahay laakiin qalbiga waa idinka jecelahay waa idinka ogahay dhammaan fanaaniintii xalay madashaas ku sugnayd oo aan xabad u kala saaraynin ee dhamaantood xil iska soo saaray inay aniga i farxad geliyaan aniga odaygaba waxa idin sheegayaa inaan qalbigayga aad daris la tihiin oo aan deeply aan idin ka mahad celinayo waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo family and friends waxaan kaloo ma soo koobi karo ummadii Soomaaliyeed meel walba xalay joogto horta way isku yimaadeen aad baan wili ilaa hadda ku soo celinaya aad baan ugu xumaa meeshiina idin deeqda weyday laakiin insha Allah badan ku dhigaa warbadan ku dhigaa talo badan ku dhigaa anyway waa idin jecelahay iga raali ahaada hadaa idin laaway هاتف ليبان اللهم زد دي هاش دتكي واسكو دخل
halsanahay anyway dhammaantiin walaalahay aad baad mas fanaaniintii reer Norway dhammaantiin Sweden dhammaan family labada dhinacba familkayga odagayga familkiisa dhammaantiin waxaa idin leenahay waa idin taaganahay waana idin mahad celinayaa waadna mahadsantihiin I'm very happy waan faraxsanahay as long idinkuna adila faraxsantihiin I love you guys warkiyo koona kombo ku jira hal mid baan rabaa midda kale aan rabaa inaan ku darso xitaa dad badan baa waxay walwalayo islaay gabadha qalbigeeda miyaa wax no siday ay ahayd waa ku qanacsanahay waayo wax walba qadarta Allah ka weyn adu gooni baad u tashanaysaa ilaahayna gooni buu u tashanayaa marka marnaba wax walba sidii ilaahay kuugu talagalay hadda u dhacdo alxamdulillah lama sharaysto si qurux badan anu waxaan u arkay kaliya ummad Soomaaliyeed oo jecel inay meesha soo buuxsameen oo ay halka yimaadeen oo mid walba rabay inuu marxaanti iyo xaadir ka ahaado walaashood ama fanaanadooda ama gabadhooda oo deema taqaanaa aqal galaysa insha Allah biidnillaahi kariimna mana jecel ma taqaanaa wax negative oo soo qora ama social media ama meel Facebook yar ama adu aan waqtiga ku lumiyo ama indhahayga aan waqti ku siiyay ku fiirsada ama ku aqriyo waxa negative ka waxaan jeclaa inaan iska dhaafiyo alxamdulillah rabbil alamin more aan negative dhageysatid more aan waxun aad indhahayga raadiyaan adigana kuma fiicno dambi bay kugu tahay caafimaad ahaana kuma fiican maskixiyan marka muhiimadan ka hadlay waxay tahay hawada aaminina waxa la idin sheegayo alshan waqti hasiinina run wada ah anaga aroos kalaha aroosadii baan ahaa si wax u dhaceen qof kasto meesha joogay haduu runka sheego wuu og yahay hadalkaygana meesha la taaganahay qofan xumaato u qabana ma jirto xumaata meesha ka dhacday oo ahayn Soomaalidiyo farabadatay dadkii shicibka farabatay mooyaane wax kale oo dhibaato dhacday maysan jirin social media haas marka waxa idin sheegaya waxa laga sheegay carshan wax runtii muhiim ah ama run ah may ahayn marxaantu waxa ugu filan intii joogtay iyo aniga oo ah gabadhii aroosaysi marna gabadhii fanaanada ahayd فناد بنكها ما فناد كم أرصد ديوانا أنت صنكوا كذا anyway هذا الكيو كوم بكتيرة وحيد الله ولا وحي نيجاتيفا يوحي حنبا شيطان بأسوناتي وحي وناجا عقلك السليم كا متقانا شرفته ووح بني آدم كالله كويسيو مركا الحمد لله رب العالمين أز أنا وهبي بانهاي دتك مش جوي هبي بهاين Soomaalida dadkii shacabka jacaylkooda iyo wanaagooda iyo sharaftooda baa meesha wada deeq weeday aad in ay jecel yihiin baan ogaaday ummadda Soomaaliyeed aad baan idin jecelahay hadda kadibna waa ka soo hadli doonaa arintaas iyo in aan ka soo hadlo ama u mahad celiyo dhammaan shakhsi family and friends fanaaniintii kan maqnaa iyo kan jooga qof walba madal qurux badan ina ugu mahad celiyaan rabaa oo ma taqaan insha Allah way imaan doontaa taasna you will see insha Allah meel qurux badan fanaaniin haday yihiin cameraman haday DJ yaashi dhamaantiin margooniya madal qurux badan idin gogli doona aad baa idin